alow may maqlaysaan shanta lix ka dhig wareeg waa radio timo dheere oo ku qoraxaysanaya maanta central station-ka ama downtown-ka magaalada dibeed war farfar sababtaan idiin sheegaya halkaan u tagay walaalayaal bariyaanba wacyigelin baan waday maanta downtown-kan tagay way farihii baa xanuunay casaaday meel walba ay xanuuntay san u meedhanayay marka waxaan halkan u soo galaan doonaya inaan la hadlo inta sida ay soo hor dhigta mobilka ka hadli taqaana iyo inta YouTube-ka ka soo qaylqaylisa ayaan doonaya inaan message u diro walaalay waxaan idin sheegayaa xanuunkan horta waa safmar baa la yiraahdaa waa safmar waxa weeyaan ilaahay oo ka badbaadimo cidi kama badbaadayso khayfafa dhintay dhaqaatiirtii bay ku dhacday wax kasta ku dhacday si kasta u taxadirayay meel taabato waa imis albaabkii aad ka furayso waa taabanaysa albaabka soo masaxaysa gurigaad galaysa waa fariibaad maydhaysa suuligaad galaysa fariibaad maydhaysa gacmii baa casaaday baashii aan soo iibsaday aan qadaraaska ku haystay antibacteriyadii iyada lafteedu dabka marka kijada iyo meelaha joogto waad ku gubanaysaa boo iska ilaaliya taana magaaladeennii lama xidhin Sweden lama xidhin shaqooyinku way jiraan dadka Soomaalida marka waxaan leeyahay maadaama iskuuladii furan yihiin shaqooyinkii baa furan dadku way socdaan magaalada kastoo dadku yar yihiin walaalayaal marka waxaan leeyahay intiinan telefoonka soo qabsataa dadkii miyaydaan tigin cusbitaalada miyaydaan bulshada dhex marin miyaydaan wararka daawan waxa weeye xanuunkani xanuun ciyaara maaha wax lagu ciyaara maaha waa xanuun safmara Soomaalidana leedihiin maalin walba meyd baa soo dhigtay Soomaali baa ku dhintay Soomaali isma badbaadaysa waxaan sameeyay meydka inan yaro meel isdhex maray duuf meel maranayso duufsato meel marsatay halkaasay duufkii marisay halkaan ay saasankeed ay taabata meel marisay dadkay qaadsiinaysa Soomaalida afar baa isqaadsiiyay 12 baa dhintay 4 halka lagu sheegay Soomaali maxaa 4 malaayiin qof fadhiya Soomaaliguna nafta dadka bilaadanka buu leeyahay bulshadana way socotaa magaalada oo lama xayirin marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa biliis naga daaya meydkan iyo waxaan aad soo dhigaysaan iyo qaylan diiwaan iyo wacyigelinta hal mar aad soo dhigtaan mid kale I send to the message u diray waa dhaqaatiirta is urursatay ee Soomaaliyeed ee Stockholm jooga wax allaala waxa soo kordhiseen ma jirto bacba dadkii ku rideen yaa nafsi baan taaganahay dadkii yaa nafsi bay taagan yihiin Soomaalidu waa sida Soomaalida inta soo dhimatay midda faraagu badan way war been baa sheegaysaan idinka yaa gama garanteen baa sanada dhimanayn sidaad soo badbaadin kartaa farihi waa nacasaadeen angolofsku waa nacasaaday meel walba fari baan xanuunaya wax walba sameeynay ilaahay wuxuu ku qoray wallahi baan waxaan ku ri isman baanintu waa okay laakiin meyd kana ma isman baanin markay nafta hayso guriga yimi iyo shaqada yimi marka waxaan leeyahay war joojiya markabkii Titanic baa la saaran yahay markabkii Titanic ma taqaanaan dadka iskoorka qaaday inankii iyo inantii mataleeyay dadka iskoorka qaaday ma taqaanaan 10 dhalinyaro music dadka u garaacayo ma weelinay dhin ana baraad guursan saadan baad guursan heesan noocaas qaaday oo dadka ma weelinayaba ayaa ugu fiicnaa war waqtigan marka Titanic baa la saaran yahay ilaahay inaga badbaadiyay marka Titanic baa la saaran yahay war wax entertainment-iya waxyaaba dadka ma weeliya war waxyaaba kale soo dhiga arinta serious kan fara dhaaftay serious kana ka hadlaysaa naaf la taaba waaya fara dhaaftay dadkii Soomaaliyeed anigu xogagaal baan u hayaa nafsi bay taagay saasay banaanka isaga soo baxay nafta qabatay guriga ku jira sidan ilaa cad kasta oo Soomaali wax kala kama socdaan Soomaali meydkii balaaye soo qoray waxbay soo qoreen naga daaya oo haddaydan wax kala sameeyno iska deyn karayn war marka Titanic music yar heesa sameeya ruwaada sameeya dadka wax kala kuma weeliya war waxana ka daaya dadkaniyo waxna dadkii gabigooda boorin baa u dhinteen way dadkii caruurtii iyo dadkii dhalinyaradii duqayti way seexan way hurdalaan baa dadkii ku dhacday way waasha nafta mar baa la dhintay Soomaali waa sii dhimatay hore u sii dhimatay sababtan idinka ugu caan waxina YouTube-ka u soo fadhiyay share iyo subscribe iyo share-ta u raadinaya subscribe aad raadinaysa hadda dhimato ka waran carabkaagaas oo carabka waa la qaaday carabkiina dub u dhiga aamusa sidaas u badbaadisa adigu
ninka yu halkan ka soo qoray la soddon ma dhintay Tabor ila degan Gothenburg ila degan shalay waan arkay isagoo magaalada maray isu bambaanay waxna muu xidhnay waxna iska dhex maray magaalada dhex maray shaqadiisu ka yimi adigu saad su bambaanaysaayad su bambaanaysa gurigaad ku jirto kuma jirtid guriga lama gelin wala anaga wadanka yagan guriyaha lama gelin Soomaaliduna dadkaas ka mid tahay qofka qof qaadsin yaa qaadsiye ana mari dhaqta overle karihi saal garis ka shaqeynay ee islaaninaysa qafiilad yaa qaadsiye way dhimatay konton bay maraysa meelaha qaar ku dhaqaatiirti war xanuunkan cidina ka badbaadsi ilaahay oo ka badbaadiyo mooy carabkiinan yoonu idin soo hoogin carabkiinan yaanu markabka intaanu deganaydan ka duulin war aamusa war naga daayo wacyi gelin ma rabno waxa loo sheeginay Swedish ka noogu filan luuqada waa laga badiyaa adeer waa laga badiyaa fishtiidi war helfete waa laga badiyaa luuqada wararka dadku ay la socdo TV-ga wada hor fadhiyaan naga daaya habartan dhimatay qofka dhintay imisa dhintay Sweden imisa dhintay maxaad noogu soo diraysaa qofka Soomaaliga Sweden ma taqaano qolo way soo qoraan sidaas uu soo qora naga daaya please naga daaya dadkii way waaleen xanuun bay wada qabaanba Soomaalidii idinka ku riday joojiya haddaydan deynayno afkaasi cunayo subscribe baad raadinaysaa carabkaaga ha ku raadsan marka seexataad la soo kici doontaa adoo gurigaaga joogaad soo kacayso meel laba taaban markaas oo doonta xagga yani waa silaalay xaas youtuber bu ku dhacay habada ana idinka magaci sheegay youtuber ku dhacay dhakhtar bu ku dhacay waa radio timo dhoroydin le afarta qof ee daawata halkan aan ku leeyahay interdowdka dot isna ilaaliya tartiibtiina isu dejiya cibaadaysta ilaahay isku xidha waa safmar balaadha xanuunkan ha iswaalina oo weelka 10 jeer xalina oo cuntadii ay soo iibsadeen qaar baa meeday gabadh baa la sheegay kitaab soo qaada masay kitaabkii meeday balka warraba halka xaaladdu marayso kitaabka akhriyeysay bay dadna istira waa taabatay kitaabkiina way meedayadna way ismeed fariiba meeday kitaabkiina way meed ma halkaas la maraya Soomaaliya digde ma digdunaan baa u hadhay xagaad uga naga joojiya ilaa cadda Swedish ka nagu filanay warada timanada assalaamu alaykum oo ku qorraxaysanaya naftu mar bay dhimatay central station jooga maanta helfete qorraxasan soo dhigayna waa taas way tusaya graaskaasan nafta ku maaweelina intaana gaadhiga yar ee daqashta ee 450 sano 50 kiiba gaadhiga tuur bay leeyno tuuraya waa museum kaana ana wata halkaasaan ugu baashalay qorraxdii baa noo soo baxay samar bay noqotay waa la noolaanaya waa la sii noolaanaya Soomaaliya waa la noolaanaya waxbaha warwarina dad muslimiin ay waxbaha warwarina teeni hore la qaatay dadka halka la isla maray teeni hore la qaatay war coronavirus baa dadka siixan leeyeen wassalaam